wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay degmada Dacarta ee gobolka Maroodijeex. munaasabadda xadhiga jaridda cisbitaalka deegaanka degmada Dacarta oo ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Dacarta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenada wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka, xildhibaano, salaadiin, qaar ka mid ah ururada bulshada degmada Dacarta, aqoon-yahanka, dhalinyarta, qurbad joogta deegaanka iyo martaraf kale. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Dacarta Axmed Xuseen Furre iyo ku-xigeenkiisa Ismaaciil Aw Muuse oo munaasabadda ku soo dhaweeyay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda isla markaana furay xafladda ayaa ka warbixiyay degmada Dacarta iyo waxyaabaha uu qabsoomay waxaana hoosta ka xariiqeen baahiyaha ay degmadu ilaa hadda qorsheynayso in wax laga qabto. waxa weeye horta degmadu waa degmo ballaaran isku xirintiisa waxa weeye waa dhowr kun kiiloomitir waxa weeye intaasi oo dhammaantood waxay u baahan tahay caafimaad marka qaarkood maalin dhaweyd waxaan arkayay labadiiba ruuxeen shaqaalaha ka shaqeeya waa in dhakhtarka joogay marka lagu diray markii hore waxa weeyaan waxa ahayn dhakhtarka jooga marka dhakhtar wuxuu rawaxay labadii goog waa caaf wax weey xanuunada guud weey marka waxa weeye ugu isku celin waxay maalintii daweysaa ilaa dhowr iyo 50 ruux marka la isku celiyo maalintii yartay waxa weeye waa meel aad u ballaaran. Dr. Axmed Daahir Xaddi iyo Dr. Rooda Daahir Cumar oo ka howlgala cisbitaalka ayaa ka warbixiyay maraaxilka dhismaha cisbitaalka degmadu uu soo maray iyagoo qurbad joogta deegaanka uga mahad celiyay gacanta ka geysteen hirgelinta dhismaha cisbitaalka xukuumadana ka codsaday inay dhamaystirto waxyaabaha ka dhiman cisbitaalka. Ismaaciil Aw Muuse Nuur iyo Ismaaciil Cabdillaahi Dhamac oo ku hadlayay afka qurbad joogta deegaanka ayaa faahfaahin ka bixiyay doorka qurbad joogtu ay ka qaataan horumarinta degmada. dhismahan cusub ee aanu dhisnay haddaanu nahay qurbad jooga anoo ka wakiila qurbad jooga waxaan ugu kalifay MCH ka hore ayaa yara dumay oo meelaha qaarkood dayactir ay u baahnaadeen kadibna Rooda ayaa nagu soo qaylisay sida awgeed baanu dabeetana inaynu dayactirno kadibna waxaan ku darsanay inuu dayactirno aynan weyneyno meesha maadaama baahi badan loo qabo markii la ogaaday baahida faraha badan loo qabo dabeetana sidaasi ayaanu ku bilownay inaanu markaa aan weyneyno ama dhakhtarka kale waxaynu maanta u joognaa waxa weeye ballaarinta cisbitaalka degmada Dacarta waxaanu uga mahadnaqaynaa xukuumadda iyo dawladda arintaasi nagala soo qayb gashay jaaliyadaha beelaha Soomaaliland dega waxay lacagtooda iyo dhaqaalahooda ku bixiyaan sidii ay jabhadu u sameyn lahaayeen laakiin jaaliyada Axmed Sheekh Saxaaq waxay lacagteeda iyo dhaqaalaheeda ku bixisaa sidii dhakhtar iyo iskuul u sameyn lahayd. baad muhiim ah oo aad iyo aad loogu guuleystay maanta haddii wasiiradii iyo madaxdii qaranku ay isugu yimaadeen sida waliba looga warramay hablaheennii sharafta badnaa iyo hooyooyinkii iyo walaalihii baahidoodii oo la daboolayo ay arkeen waa qodob aad muhiim ah aad baad ugu mahadsantiin madax mas'uuliyiin iyo muwaadiniinba. masalada kale inoo soo socotaa waxa weeye kulli wasiir ku-xigeenkii waxbarashaduna waa joogay arintii iskuulkana tol jiray oo magacooda uu ku hadlay Ismaaciil ayaduna waa la dhamaystirayaa oo waa la raacinayaa hadday tahay direyskii oo loo soo iibiyay ardayda hadday tahay bilfoonkii oo lagu xidho oo ka maqnaa iskuulka iyo hadday tahay dildilaacyada ku yimid oo iyagana la dhamaystiro waa qodob isaguna guula waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waa loo wada mahadnaqayaa amiin qurbad joogta khayr Allah siiyo بوينت كله واحد ويون أدقو ما نقيا إسماعيل داود إسماعيل أو شنطة دام إيمان تكدي سندق مدا بيها بقى أي كهش الدق مدو حوله يبني آدم بقى يسوون مدة كسر شقيني رادنا أي كقولي ستين لما يسترتو كل وانا كله وضع قيب قادني أرنتا سنة يدنا واحد ويان قول وينا xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka tala samee Axmed Yaasin Xaaji Cabdullaahi Abu Fute Sultan Axmed Daahir Muuse Cilmi iyo Chief Caaqil Maxamed oo Cismaan oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in bulshada deegaanku ay 70% wax qabsadeen isla markaana xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeediyay in doorkeeda ay ka qaadato si degmadu ay u gaadho meelaha ay higsanayso. barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi ayaa ku bogaadiyay mas'uuliyiinta degmada horumarka ballaaran ee ka wadaan degmada Dacarta isla markaana wuxuu dhagax dhigay rugta ciidanka booliska ee degmada. degmadani waa degmooyinkii ugu dambeeyay ee la magacaabay 2017kii runtii deegaanadu waxay isku dhaafeen sida dadka deegaanka ka dhashay ama qurbad joog ha noqdo ama qolqol joog ha noqdeen ay ugu kacaan waxaan marxaati ka ahay degmadan in dadkeedu u kacay oo la dhisay oo runtii
quruxi ka muuqato oo qurba joog iyo qolqol joogba la iskaashaday xukuumadda Somaliland intii xisbiga kulmiye uu talada dalka gacanta ku hayay baa degmada la magacaabay wax badan baa laga qabtay ama xukuumaddii hore Axmed Silaanya ha noqoto ama tan ha noqotee hadda anigu waxaan kaga habsaamay saacada inta yaraan ka habsaamay in gaadhigii degmada degdeg loo kiciyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudahana waan soo maro waan ka wada hadalay insha Allah inuu degdeg u hawlgalo xukuumadda Somaliland ee hogaaminaya madaxweyne Muuse Bixi Cabdi waxay ku hamiyeysaa oo mar walba heegan ay u tahay in deegaanada baahiyahooda la ogaado oo kor loo soo qaado wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Xasan Ciroole ayaa bulshooyinka deegaanka ugu baaqay in ay caruurtooda kula dadaalaan waxbarashada isla markaana sheegay in xukuumad ahaan ay wax ka qaban doonaan horumarinta waxbarashada ee deegaanka kulka ardayda soo kordhiya ninka laba inan leh ee xoolo leh midna galka hawr dirto oo si galka dambe xoolo ugu raaco kii galka oo la raacay galka dambe iskuulka ha tago si kulka waxa weeyaan ilmaha mustaqbalkooda dhisa kaana ardayda ku soo dara soo boqoliyo 200 buu la sino arday iskuulka kulka arday la helo iskuulkana waa la kordhin macallin badanna waa iman gabagabadii wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka mudane Liibaan Maxamed Yuusuf oo xariga ka jaray dhismaha cisbitaalka isla mar ahaantaana soo kormeeray qaybaha kala duwan ee cisbitaalka ayaa faahfaahin ka bixiyay siyaasadda horumarinta caafimaadka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland caafimaadku runtii madaxweynaha iyo dawladaba priority buu yahay ama mudnaan buu leeyahay marka laga yimaado amniga iyo security-ka arinta labaad ee xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Bixi uu hogaaminayo mudnaanta labaad waxa leh caafimaadka itaalkeenu meel kastaba ha gaadhe himilada iyo hiigsiga aynu leenahay ee dhanka caafimaadkuna waxa weeyaan inay dadkeenu caafimaad helaan xilligay doonaan iyo meeshay doonaan iyadoo aan culays dhaqaale jirin waa ka hiigsigayno aynu leenahay waxa la yiraahdaa adduunka universal muxuu ahaay health coverage in dadka oo dhan waddankeena ku nool uu caafimaad ku gaadho iyadoo aan culays dhaqaale lahayn meeshay doonaanna ay caafimaad ku helaan waa ka halkaynu doonayno inaynu hiigsano Mukhtaar Cabdiruus Cige TV-ga qaranka Dacarta